kulan lagaga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka isla markaasna loogu sameyn lahaa dhirayn iyo qurxin magaalada Burco iyo deegaanada hoos yimaada ayaa lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Burco. kulankan oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Burco iyo inta badan gudoomiyaasha tuulooyinka hoos yimaada magaalada Burco ayaa lagu dhiirigelinayay dhiraynta deegaanka, waxaana kulankaasi muhiimadiisa sharaxaya xildhibaan Siciid oo kamid ah waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose Maxamuud Oday iyo Maxamed Axmed Daahir oo iyaguna kamid ahaa xubnihii soo qaban qaabiyay kulankan. laba ujeedo oo ah marka koobaad in aanu ku qaybino dhir dawladda hoose ahaan aanu ku beeray beerta dawladda hoose dhirtaas oo nagu tala galay tuulooyinka iyo degmada ama heer gobolba in aanu gaarsiino iyo sidii la isaga wacyi gelin lahaa ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta. marka u horeysa inuu noqdo hamigeenu sidii loo beeri lahaa geed oo qof kastoo muwaadiniba uu isugu xilqaami lahaa ama uu ugu dadaali lahaa sidii uu u beeri lahaa hal geed. hawshan waxa nala wada oo xil xoog leh iska saaray wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka min heer qaran ilaa heer degmo. muhiimadii waynu fahanay mashruucana wuxuu ahaa mashruuc tijaabo ah. wasaaradda deegaanka ayaa maamulkii soo daadejisay, wuxuu soo daadishay wax ka mid ah waaxda arrimaha bulshada. kulankani waa kulankii saddexaad, wacyigelin ballaaran baynu samaynay. ujeeddada baytul qasiidka waxa weeye ilaalinta deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah. mashruucani waa tijaabo, waa 15 tuulo iyo 4 waaxood degmada ah. marka dambena ilaa 60 tuulo noqonaya, bulsho isku midaynu noqonaynaa. sidaa uu idiin sheegay maamul daadejintu waxay ka kooban tahay caafimaadkii, waxbarashadii, biyihii, nabadgelyadii, intaba way kala shaqeeyeen. ka qaybgalayaashii shirkan ayaa dawladda hoose, dawladda dhexe iyo qabanqaabiyeyaasha kale ee kulankanba uga mahad celiyay mashruuca qiimaha leh ay kulankaasi ku soo bandhigeen. gabagabadiina waxaa madasha lagu qaybiyey in ka badan 100 geed oo loogu talagalay in lagu beero Burco iyo deegaanada hoos yimaada. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.